madaxweyne Erdogan ayaa maanta waxa uu diray ciidamadiisii gaarka ah waxa ayna ka degeen Falastiin arrinkaasi marka uu sameeyay wadanka waxa uu xirxirnaa corona dartiis caawa waxa soo baxay waayeeladii caruurtii oo dhan waxaana xirmay jidadkii waaweynaa ee Istanbul wardegdeg haddana soo gaar waxa uu sheegay 85 milyan oo muslimiin ah kaliya inay taagantaa banaanbaxan waa 85 milyan oo iskugu jira Carab Soomaali iyo dadkii u dhashay wadankan Turkiga Allahu Akbar qof walba xaadiisa ayaa kacsan anigaana hadartan nidiis qaar oo jeedin dar qaar waxay jiraan oo diimo kala duwan haysta oo hadana masaajidka soo gala oo halkan jooga hadda waxa u jeeday maag sameynaysa calaamadda laakiin ma duubi karin waxay ugu noqotay inkastoo anigaba hadda maadaama anoo qamiis iyo cimaamad aan wato aan la soo galay masaajidka dhexdiisa ayagana ila yaabeen wixii kaamir watay ama wixii telefoon watay wax duubanay ee kor iga duubanayeen waa khajla mataqaan waa yara xishooday masha Allah markaan sidii u weyn yahay wuxuu dhisan yahay musqarniyo waagi Cusmaaniyiinta laga hadlaa waagi Cusmaaniyiinta yaa noola meela weyn ooyadii aabay xitaa iska dhaafay oo yeesho xitaa ma nooleen si u weyn ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan ayadoo ciid la gelayo waxa ay ka xun yihiin waxa ka socda Falastiin waxa isku soo baxay ummadda muslimiinta hala shargaray ma sha Allah calanka Falastiin la soo wada qoro hala tuso meedii walba laga soo qaato hala tuso hala shargaray Allahu Akbar qof walba muslim aaday ugu xun yahay waxa ka dhacay Falastiin waa la wada ooynaya waa la wada qiiraysan yahay Allahu Akbar caaw kale cidaan oonin ma jirto dhigna hadaa leedahay muslim aataa la shargaray hala wada tuso beesha caalamka la tuso shargareeya